ku golaha wakiilada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku golaha xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ujeedo cabasho deyn lacageed mudanayaal sida aad la socotaan waxaa jiray shirkado iyo hay'ado kale oo heshiisyo qandaraas lagula galay inay sii bixiyaan ama ka shaqeeyaan dhammaan kharashaadkii ku baxay hirgelintii doorashada dadban ee 2016 haddaba annagoo ka kooban shirkadihii dejinta ergooyinka sameynta aqoonsiyada ergooyinka hoteeladii saxaafadii lafdhabarta u ahayd nidaamka doorashada iyo goobihii lagu qabanayay doorashooyinka dadban ee heer Puntland waxaanu ka camanaynaa in qarashaadkaasi uu weli naga maqan yahay muddada ka soo wareegatay iyo inta aanu sameynayna sanad ay gaarisay idinkuna aad ogtihiin sidaa darteed waxaanu golaha wakiilada ka codsanaynaa maadaama ay yihiin wakiiladayadii annaga ina matalayay inay ka howlgalaan sidii aanu lacagtaasi ku heli lahayn iyadoo ay gudiyadii ku shaqada lahaa u gudbiyeen xukuumadda kana codsadeen in lacagtaas la bixiyo annagu waxaanu ka shaqaynaynay wadaniyad shaqadii aynu heshiiska ku galnayna waajibaadkeedii waan gudanay walina waxaanu dhowraynaa sumcadda iyo sharafta dowladayada waxaase nasiib darro ah in mudanayaashii lagu doortay qarashaadkan iyo madaxdii ay doorteenba aanay ilaa iyo hadda wax xil ah iska saarin hantidaas naga maqan iyadoo uu muddo badan qoraalkeedu ama qoraalka iyagu xafiiskooda uu yaalay ugu dambeyntii waxaanu si xushmad iyo qadarin leh idinka codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan naloo soo gaarsiiyo hantidaasi maqan